dastuurka Soomaaliyeed wuxuu uga dhigan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed horta waa wixii lagu xukumayay berrito waxay u baahdaan iyo waxay amba ayaga galaan ama sameeyaan amba ay u baahdaan amba ayaga laga galo macnaha wax kasta oo noloshooda ku saabsan berrito wixii lagu salyeelay macnaha oo lagu basgareynay كدلنا Soomaaliyeed ahaan dastuurka wuxuu nooga dhigan yahay wax weyn taasoo oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin xuquuq fara badan sida duniyooyinka caalamka oo kale dhalinyarada Soomaaliyeedna wuxuu siiyaa xuquuq fara badan kuwaas oo ay dalka uga baahan yihiin dalkuna iyagu uga baahan yihiin waxaan ogsoonahay dastuurku inuu yahay xeerar iyo habraac tusaayo qofka muwaadinka xuquuqda uu leeyahay iyo waajibaadka isaga uu leeyahay sadarteed waxaan aaminsanahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay jaanis fiican u heli karaan dastuurkaas inay xuquuqda ay u baahan yihiin iyo xeerarka ay rabaan ayaga ay raadinayaan inay helaan waxyaalaha ka mid ah dastuurka ugu waajibana waxa ka mid ah inaad ka qayb qaadato kala amnigii waxbarashadii horumarinta bulshada waxyaalahaas oo dhan waxay ka qayb qaadanaysaa yani waajibaad ah in dastuurku saarayo horumarinta dalka wadaniyadda marka dastuurku waajibaadku saarayo waxa waaye inaad noqoto qof wadaniyad maadaama dastuurka waddanka u degsan macnaha ay ku siinayaan xuquuq badan